بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo. cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan le Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa saddex qodob. qodobka koowaad waa arinta qabuuraha iskool bulisiye kelmad baan ka oranaynaa. qodobka labaad, ra-iisul wasaaraha safarkiisii aan sii sheegnay uu ku tegay Nairobi iyo waxyaabaha halkaa ka jirana kelmadaan ka oranaynaa. qodobka saddexaad, xajka oo buuq uu ka taagan yahay qoondadiisii iyo qaybsigiisii gaar ahaan Puntlandna kelmad baa ka oranaya. waxaan dhageystay nin booliiska u hadla oo ka hadlaya qabrigii Ajakis Allah u naxariistee iyo wiilkiisii oo intuu soo kaxeeyey uu garab taagan yahay uu leeyahay hadal dadka la hadal. waxaan dhageystay marka hadalkii taliyaha wuxuu yiri qabuuraha waxaan ku wareejinay derbi kow. dadka anagu uma sheegin inay qabuurahooda la baxaan, meydkooda la baxaan, laakiin qofkii la baxaya waa ku caawinayna. hoojeeda wax la yaab leh weeye, wax la yaab leh. dowladdan wuxuu alla ku sagsaagay gebi ahaanba. ilaahay waxa meel yacni dhul ah oo bannaan waxay rabtaa ha ahaatee ma arki karto dowladdu. qalastaa ku kacaysa. xasaasiyad bay ka qabtaa inay dhul bannaan oo hanti guud ah oo iska bannaan ay xamar ku harto. marka warkaan helayno iyo xoogahan helayno, meesha waxaa la rabaa hoteelo iyo dhismayaal casriya in laga dhiso. marka maxaa la sameeyey? dadka shacabka ah baa waxaa la gaarsiiyey xog ah meeshan qabuuraha in laga bixin doono. dadku markay maqlaan oo ruumarkaa la faafiyo ayna arkaan derbi in lagu wareejinayo meeshii oo ay shakiyaan, markay yimaadaan dowladdu ninkan booliiska u hadlayay su-aashaa weydiinaya waxay tahay, adigu haddaad dowladdii tahay derbigana sababtaa u wareejisa ay tahay amni, kolley qabuuraha cid weerar ku hooleynaysa anu garan maayo, dadku horeyba u dhinteen. inta badanna dadkii ay shabaabku laayeen baaba ku aasan. marka dadkaas baanu amnigooda ilaalinaynaa qabuuraha maadaama ay maaragtay ma fahmine. su-aasha lagu weydiinaya waxay tahay waanu ku saacidnaa dadku markay yimaadaan oo dhahaan qabriga waa la baxaynaa, waa u kaalmaynaayo waa la bixinaa qabriga. markaa leedahay haddaad dowlad tahay, dadkaagiina ay yihiin, dhibna ay maqleen, ninkii dhihi lahaa Soomaa war dhib ma jire qabuurtayna meeshiina u daysta. soo inaad saas tirahdaan ma ahayn dowladnimadu. war waxaas beenba laydin sheegay, qabrigu meeshiisa ha idiin yaallo oo dadku markaa ay niyad qaboobaan oo degaan. waa caawinaynaa, ha la baxa ka haysta, meeshay geysanaysaan cirka geysta daartaan. waxay caddayn u tahay hadalka askarigu, waxay caddayn u tahay dowladdu islahaa difaac oo waxaa ku difaacdaa annagu dadka uma sheegin, amarkaasna ma aanaan bixin, laakiin qofkii la baxaya waa ku taageeraynaa, ha la baxo. meesha qabrigan laga saari maayo, dhibna idiin imaan maaye daysta dar alle ku dega meeshuu ka oran lahaa. waxaa cad marka oo hadalkaa ka cad dowladdu inay ku jirto kana dambayso wararka la maqlayo oo ah in meeshaas la rabo in laga dhiso dhismayaal casriya iyo magaranaysaa hoteelo iyo ganacsi waaweyn laga sameeyo ayaa soo baxaysa. kelmadda intaasan ka oranaya. dowladdanu dhulal aad u badan bay boobtay. waxaan arkayna hadda isbitaal laleeyahay kaaraan ku yaala oo laleeyahay isagana waa dowladda burburinaysa iyo eriyadaas oo la barakicinayo suuq dad ku ganacsado oo laga cayrsanayo. kadibna qof gaara oo ganacsatadaas iimaanka beeshay oo aan dareenka iyo dadnimada midna lahayn oo dhul inta dad masaakiina laga barakiciyo la siinayo, see bay rabaan inay u najaxaan oo habeenkii see u seexanaya. marka dad masaakiina oo meel degan inta la barakiciyo cagaf la geliyo alaabtooda loo yaaciyo qaarna laga burburiyo, aad adigu berri intaad meesha timaada aad hoteella ka dhisanaysa, see niyadaada u qabowdahay? maxaa wadanku la degilayahay? wuxuu la degilayay dadkiibaa dhintay oo damiir ahaan u dhintay.
ninkii xoogga lahaa oo qawiga ah kan miskiinka abu cunaya wuxuu leeyahay iga kici anaa lacag ku siinaya dowladdu lacagteeda ay dhufsanaysaa waa looga kicinayaa isaguna wuxuu dhisanayaa dabaqyuu ka dhisanaya ilaahay waa ummadda masaakiinta u maqan kelmaddaas intaas ka oranaya ra-iisul wasaarihii safarkii aan sheegaynay buu ku yimi 6da bisha heshiisyo badan oo 4 qaybood ka kooban baa la saxiixay waxaan ognahay ilaa iyo hadda hadal aan ka dhageystay ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ahaa heshiiska Kenya aan la leenahay wuu xumaa annaga ka hor xamsow inaad wax baratansiisid weli ma aadan gaarin shuqulna kuma lihid mana haysataan dowlad wax kula tartantaan cid waxaad kula tartami kartaan dadkoo dhan aad ka badisaan sida hantida ummadda loo boobo iyo sida lacagta khasnada ku jirta safar loogu qaato taa waa ku tartami kartaan laakiin dowlad idinka horreysay baa Kenya xiriirkeeda xumaysay oo annaga hagaajinayna baddaa lagu diriray ma wax fiican bay ahayd marka inaad ka soo horjeedaan baddeennii bay rabtay Kenya inay qaadato salka in dhulka loogu dhuftana sax bay ahayd kadibna waatay saaxiga keentay kii kaa horreeyay dihaal waatuu macawisaha xirayay idinku xiriirka ma soo celin been baad ka sheegtay sanad iyo bar ka hor baa la soo celiyey intaydana idinku imaan oo ay markaa gar qaadatay waxaa kaloo kaa maqan oo aad khaldaysaa oo aad rabtaa dadka inaad ku jaawareerisid annaga xiriirka soo celinay xiriirkan waxaa soo celiyey dowladdii kaa horreysay kadib markay gar qaadatay dowladdii Kenya marka labaad dowladdii Kenya qaska waday oo Uhuru uu hogaaminayay markay meesha ka baxday sheekadaas way dhamaatay Kenya iyo idinku waxa kaliya aad soo celiseen waa qaadkan idinka danaysanayo boobaya madaxweynaha dulaalka ah lacagna ka qaata shakhsi ah u qaata $4.5 baa kiilo walba qaada u saaran waxaad soo celiseen oo aan qaadka ahayn maana arag 2 sanaad maraysaan heshiisyada hadda aad saxiixdeen horaad u saxiixdeen maxay horgeli waayeen qaadka markaa saxiixayseen waxaa noo sheegteen kalluun in lagu bedelanayo goormay dhacday goormay dhici doontaa ma dhici doontaa umalayma inay dhacayso sababtoo ah ujeedadiinu waa lacag iyo kaash ee maaha inaad dowladnimada hagaajisaan waa qodobka labaad waxaad tiraahdeen isu socodka iyo fiisooyinka 2 sanaad maraysaan dowladdiina 2 sano kaliya u hartay haaf way baad maraysaan haddaad xiriirka idinku soo celiseen oo adduunka ay heshiis la tihiin maxaa fiisaha la idiin siin layahay ilaa iyo haddeer haddana waxa aad qoraysaan waa xabrun cala alwaraq waa waraaqa lagu qorayaa wax wanaagsan oo waraaqa lagu qoray laakiin meelay ku dambayn doonaan cidina ma taqaan waxaan kaloo arkaynaa ingiriiskii iyo ajnabigii oo aad uga sii faa'iidaysanaya kala qaybsanaanta dowladdaada ra-iisul wasaare xamsow haddii dowladdii ay ku guul daraysatay inay dadkii lookalka ahaa isku wado caalamkan isku wadaynaa cidina idinka akhrisan mayso way adkaanaysaa in laydinka aqbalo oo laydinka akhristo waxaa kaloo aad ula yaabay islaantii gaabnayd oo ingiriiska ahayd oo aad gacanteeda diiday inaad salaantid iyo islaanta madoowa aad salaantay maxay ku kala duwan yihiin qabyaalad miyaa halkaa ka jirta waa islaan madoow cidda miya waxaan u malaynayaa culayskii falastiin hadalkeedii kaaga yimi wuxuu ku marinayaa inaad ogolaatay inaad habraha salaanto aad awal diidi jirtay hantidii ummaduna in badan